farxada halkan markaan imid dadka badankiisa in badan oo odayaalaho aan aada isu garanayno waxay galaan iyo waxay gudaan iyo dalka waxay u soo qabteen inaan holkan ku arko onan beryaha isarag aad iyo aad baan u faraxsanahay dhalinyarada kale anaan is aqoona aad baan ugu faraxsanahay in la kulmo dareen gaaray bixinaysa dhowr qodob waxaan maanta idinku imid inaynu isla eegno xaaladda aynu ku sugannahay iyo mas-uuliyadda wadar ahaanadeena saaran haddaynu nahay dowladdii ama xukuumaddii waxaynu ognahay maanta dadkeena somalilan oo inagayna sugaaya intayna in lamid ah raadadka ay ku reebeen abaarihii dheeraaday ee 10 sano socday dadkeenu wuu sii fakriyey haddaad ka soo bilowdo halka ugu baraysa xadka iyo haddaad ka galbeed ugu galbeeday aad gaadho oo martaan oo laga yaabo dee wasaaradda maalinta ugu baahsan too martaan meel walba waxaad arkaysaa bac iyo ummad cidlo taala ummaddaad martaa gobolkaad ka gubta kalaba waa maxay waa dadkii abaaraha inagu somaliland warshada marihin macdana ma qodno baddana ma naqaano waxaa la idhaha serviceka ee hudheeladii waxa laga shaqeeyana ceeb baynu naqaana oo iyadana ku wanaagsanin adeegga inaga la idhaha afkeena ku cusub yaho adeeggu dee khaadim baynu odhan jirnay oo dad yaroo dirto oo wax ceeba oo dad u jajabanin waxa la idhaha imika adduunka dee lagu shaqeysta hospitaalitiga hudheelada iyo soo dhoweynta iyo dalxiiska iyo dhaqankeenu kuma fiicna nolosheenna waxaa inoo shaqeyn jiray 100% dhaqaalo naga soo geli jiray wixii magaalada ka baxsan ama beer ha qabo ama xoolo ha dhaqo magaalada waxaynu ahayn dad iyaga ku nool inta badan magaalooyinkeenu wax baac mushtar wax kale iibiyo dee dharkaa dibadda laga keenayo iyo dilaalkaa mooyaane ma lihin wax soo saar weyn kuwa inaan lahayn marka miyiga waxaad cimiladiis bedeshay baabiisay xoolo way baxeen gobolladii dalka ugu taajirsanaa ee 10 kun arigaa dhoofin jiray ee nin waliba saduuqa bartaa doolarka uga buuxay maanta waa fuqaraa oo kuwa bacda ku hoos jira kuwii beeraha wax ka soo saari jiray ee dalagga beeraha intayna kale dalalka ugu qanisan dee ay ka soo dhex jiraan 2 sano dibadda xakam ay soo goyn abaarihii oo dhacay dadkii oo ka lumay jihadii shaqada oo waxay nagu dhacay magaalo jacayl magaalada wax laga helaa waa lagu soo yaacay magaalada waxay noqotay xero cayd weyn oo la isugu yimid xataa magaalooyinka dadka jooga badankoodu dee gaajo meel la jooga ma jira way yar yihiin qoysas 3 goor xuna kan ay nagu dhigtay hawska wadaad dhex gashaad ka naxaysa iyo kii kala tagtaba halkaa airportka dushiisa aad tagto magaalada inoo qaxootay 2 jigood laga sameeyey airportka xagga koonfurta ka xigta meeshaad martaba dadkaasi waxay sugayaan ilaahay ka sukoo waa dowladdeena ilaahay ka sukoo waxay wax ka sugaysaa dadkaas inay noolaadaan waa wasaaradda maaliyadda markaa dadkeena halkan fadhiya xilka saaranay ummaddaasoo dhan bay sugaysa dad badan oo in badan soo shaqeeyey oo waayaragnimadii leh oo taladii haya iyo dad aqoontii leh oo yar oo firfircoon waa isku jirtaa labadaas markay iskaashadaanna waxbaynu gaari karnaa markaa horta maaliyadda cashuurta iyo cashuur baa lasoo qaaday iyo budget baa la sameeyey iyo miisaaniyaddu waa technical waa shaqada aada ummadda wax kusonaysaan laakiin mas-uuliyadda idin saarani ee ummaddo dhami dowladda ka sugaysaa dowladduna maaliyadda ka sugaysaa waa ummaddaa baahan marka waxaa laga rabaa badda wax uga soo saaraya oo caqli keenaya beriga wax uga qodnaya beeri wax uga qabanaya baraya shaqadan la idhaha serviceka adduunku ka shaqaysta baraya ee dalalkan aanu jaarka nahay dekada wax uga gudbinaya isu wada geeyo maaliyadda waxaa laga rabaa dadkaa baahani waa ciddii sugaya horta halkaa aynu ka soo duulno xilkaa ayaynu ka soo duulinaa dowladdiina idinkayd ka sugaysa aqoonteedu waa leedihiin dhalinyaro fara badan oo intii dalka la jooga wax baratay oo aqoontii casriga ahayd leh raggii aqoontaaba qori lahaa dejin lahaa manaahij ku habboon dalkeenna bari lahaa 40 sano 50 sano waa aragoodii leh jaamacadaha uga soo baxayna way noo joogaan isku darkiina
ayuu dalkaasi maanta meel ku gaari karaa. marka detailka mashruucyada wadaan iyo xeerarka wadaan iyo waxaynu wadnaa waa internal, waa ta la doonayo inaad fikirkii iyo caqligii isu geysaan deetana aynu u rogno practical aynu wax ka soo saaro. aad baa ugu mahadsantihiin saacadaha badan ee shaqaysaan, waayo maaliyadda waxay ka mid tahay meelaha ugu dhib badan ee lagu shaqeeyo yani qalin iyo buug iyo fikir. hawshana waxa u adagta fikirka. dadku waxay ku kala hormaraan sida maskaxdu u shaqeyso, kuma kala hormaraan sida u kala xoog waaweyn. dalka laba qolo u barista, dalkii ilaahay wax siinayo laba qolo ayuunbaa u hawlgala. waa ciidamada qalabka sida oo amniga dee xajiya gudaha iyo dibaddaba. cadowgina waa lagaa daafacaa oo aanad ka baqan dee in lagu soo weeraro oo tahay hilibisoo la cunaayo. gudahaagina ciidanku kala qabta oo ammaanku kala siiya oo qofka gardaran qabta waanu helaa iyo dee waxay lagu nool lahaa dhaqaalaha. markaa wasaaradaha dhaqaalaha abuura waxaa hogaaminaysa maaliyadda. wasaaradaha dhaqaalaha abuura tamacdanta, kalluunka, beeraha, tan imikaanu abuura investmentka oo iyadu dee cilmi nagu cusuba. waxaasoo dhami waxaa hoggaanka u hayaa waa maaliyadda. markaa maaliyadda dadku waxay u qaataanuun inay budgetna samayso, cashuurra labada kastan ku soo ururiso, mushaharooyinkeena diyaariso, meel dhacdhaclahoo inankii la geeya baabu lacag dheeraada helo oo maaliyaddu ka shaqeeyana ay noqoto. dee taa maaha, way ka ballaaranta. marka waxaan jeclaya inu ra'yigaa wadaagno war dalkan sidaynu wax u qabano. halkaad eegtaba waa baahay. saaka 7dii reer hargeysa barnaamij baa ka socday. waxay ka warramaysay baahida qoysaska abaaraha soo barakacay ee Burco jooga. waxay ka warramaysay qoysas carruurtooda hayn kala waayay oo ay ka qaadeen oo ay reero kale u dhibeen. saa wax cunaan. waxay ka warramaysay guryo carruurtii silsilad lagu xidhay. ila mubaalka waa baalkan maxaa beebeega waa aqal Soomaaliga yar ee mashraaca oo intay hooyada carruurtii ku xidhay waa ka wada xidhay ayadan dharmayl iyo reer ahaw doontay. kii sugaya innaga markaas halkan waxaynu u nimid maaliyaddu inay fikrad ballaaran abuurto oo isu tagto oo marka hore iyadoo ay noqoto one team oo shaqeeya. meel walba khilaaf ugu jira. qoyskaad ka soo kala hadeen, qof walba carruurtiisii, wasaarad kastoo wada shaqeysa, laba xafiis oo jooga. bini aadmiga iyo khilaafku ilaahay baa wada abuuray. sida jacaylka uu abuuray labada qof iyo aabbahu ilmihiisa u jecel yahay haddana way iskhilaafaan. hooyadu ilmada jeceshay haddana way iskhilaafaan. qof kastoo jeceshahay khilaaf u yimaadaa. laakiin waxaa lagu kala baxaa sida khilaafka loo xaliyo ayaa loo kala hormara. haddii labada xafiis oo jooga hadalkoodu dhammaanba waay warqadii yaa qaaday combyuterka imaadaa furay oo meel la gaari maayo. laakiin haddii kaa laga gudbo oo xagga hore la wada eego meel baa la gaaraya. korkaa waanidda waxaanu ka doonaynaa oo ummaddu idinka sugaysaa one team. waxaa aada qolada maaliyadda Soomaaliya dhalinyarada ah ka timaada dibadaha axmedow daadan yare waxaa la ii keenay laba buug baa mid walba wax laga keena malaya malaha horta konton kama yara midna. waxaana keenay daadan yare jaamacadaha dibadaha ka timaada lageed waran. hadiyadda weyn ay keeneen waxa weeyaan kii Singapore oo ahaa madaxweynaha 20 sano odayga ee Singapore ka saaray mashruucda adag buugiisa. nin wal oo malaha jaamacadda ka yimaado inuu ka yimaado ama fasax ku yimaado inuu ka way keena. waa harkood 10 sano u dambeeyay. kalabaad waa Mahathir ka odayga nimka soo jirka soo noqday ayaa la keenaa. kan akhri markaa imka waxaan doonayaa maaliyadda aniga ka xaq in lagu keeno akhriyo marihii maaliyadda xaq leh. ilaan dhaqaale dalkooda ku dhistay. ya anigu tala urin baan leeyahay. aniga dee raggii taa akhri lahaa ee dhaqaalahan muxuu ka saaray odhan lahaa dee waa raggan. ilaan isaguba waxaa iyagoo meekale rag baa u diyaariya, rag baa u soo shaqaynayay. ninka guddoomiyihii meel kasta guddoomiyaha kaada talada la soo ururiyo dee dhiiraan ku hirgeliya executive baa laga waa inuu dhiiraan ku hirgeliya. talada ay wasaaraddu soo geyso wasiirku waa inuu hirgeliya. wasiirkuna waa inuu aniga ila yimaada. wuxuu ila imanayaa wax bisil oo rag intoo dhan mid cooperative waa inuu helaa. deetana waa intii la hirgeliya oo iyana dhib badan
hirgelinteedu marka nimayow dhibaatada gudaheena sugaysa waxay noo dheer dagaalka soomaaliya ee naga dhexeeya oo 27 sannadood aynu iminka qaranka Soomaaliya gooni taagan lahayn dagaalkay nala galeen baa ka weyn 30 sano hore aan dagaalka nafiyo maalmo hore intii ka badnay shalay waa maqlaysay waa akhriday barnaamijka media waa kii ra'iisul wasaaruhu qoray Somaliland waxa la yiraahdaa special arrangement marka horeba sadaqa wax lagu faana ahayn waxay si nabigu wuxuu muu amaanin gacanta hoose tasaro amaan marka horeba iyadoo ceeb iyo yaxyaxa inaynu baryo ku hadalno nabayaan si daaqdi wixii noo soo guday ceeb tahay ayaa haddana dambe tii lafteedii la isugu yimido waxa dhaw waxaan yaraa Soomaaliland asisaan yaan la siin qolada wax bixinaysa qaranka bixinaysa warmee soo horaan ku wado afartiisi gacan yaray tii Kismaayo tii Garowe tii Baydhabo tii Jawhar oo Soomareeb saaka qoraalba saxan ay gaalada leeyihiin Soomaaliland waxa loo siin karo miyay ku jirtaa laba laba gabaraya waxa soo dagaal waxaan ka baxaynaa inagoo Ilaahay maskaxda siiyay iyo awoodeena ka faa'iideysana waan ku mahadnaqayaa progresska badan ee wasaaraddu samaysay inta sharci wada waxbay bedelaysaa waxba horumar baa jira oo dee arwaan garanaya wasaaraddu markii 91 kila bilaabay iyo imika halka kala marayso waa kolba progresska sameynaysa waan garanaya halkan laba xafiis oo qorna wada joognay daahir salaano markaa agaasimaha gudahoon leeyahay lacag keen oo la shirin banaga mu soo gaarin wiidan ayaan garanaya cigaaliyo daahir salaano xisaabiya gudahoon shirin ba ma hayno progresska dawladda waxa samaysay maaliyadda ay dawladdu gaadhay maanta xafiiso dhalinyaro oo jaamiciyeena electronics miisaanid ballaaran haba yaraatay marka adduunka loo eegay progress weyn baynu haynaa taana waxaa keenay rag badan oo odayaalaho weliba odayaasha waaweyn ee berigii hore ahaa ee aan qoladii yar dambe ahayn ee imika da'da sii wada maray halkan soo fadhiya ayaa asaaska lahaa oo hayay nidaamintii hore qaar ilaa ingiriiskii nidaamka loo shaqeeyo oo ka wanaagsan jaamacadaha aynu imika download ka faraha badan nagu batay ka asaasan oo baahan naga marka waxaan saakayda ku yimid ina iskoobkiina kor u qaadaan inay waxaas ina sugeeyaan lacagta iyo samayntaana meelo badan baa laga eegaya hawsha kale intaale ee idinkan iska sugaya inay doogeysaan waxa weeye dhaqaalahaynu qaadno siday diintu waa tiri waxa dhaqaalaha loo kala qaadaa ka waxaysta iyo kan waxaysan marka kii waxaystay ama cashuur dheh ama saka dheh waxaad wada kii waxaystay waa wax laga qaada deetana waa kiin deertaa lagu soo koriya waa dee maaliyadda adduunka saasaa madax diinta doonta qaado sidka doonta qaado waxa weeyaan kan lacagta badan haysto ilaan dalkan lacagta gasho wax bixi oo keenay la gaarsiiyo laba hal baa la rabaa inuu saxalno ka daba markaa inuu kii lacagta ku dhiiran wixii sharci ku waajibiyay walaal dee sharci ku waajibiyay iyo waxaan ka ka soo qaadnay inaynu cadayno inuu gaarayo kii faqiirka ahaa in la noo dhexda ku lusanaysa halka u badan waa aaminaad dawlad baan shirkad waxay ku shaqeysaa waa aaminaad haddii laga aaminka baxo lagu tiriyo waxaas inaan transparent noqonaynin waqtiga laga dhigay shirkaduhu imika waxaad maqlaysaa dadka lacagtooda inta badan baankeena ma dhigtaan maaliyadda marka lacagta bixisaan cashuurta laga qaadayo way ku dagaalamaan caqli bay qabaan lacagtan dad baa cunaya oo muswaasuqaya isagoo psychology qabo wuxuu haddii waxa cuno si doonu kaaga baxsanaya marka horta waa inaynu inagu xukuumada ahaan madaxweyne ilaa ka ugu garaadayar ee dhiida horta waa inaynu isla fahamnaa oo iska nadiifinaa wax dadku nagu tumaa oo ceeb noo soo jeeda dadku waruma hayaan markay canaanayaan ninkaas kaliga traafikada ee taagan ee caruurta leh ee xaaska leh mushaharadu inaan bixinin kirada gurigiisa dadku aad uma arkaan ninkaad cashuurta u dirtay ee 20 caruur leh ee waalidkii ku xidhan yahay mushaharadu qaataa in laga yaabo in ay guriga kiradiisa iyo caruur iyo biilka iyo biyaha yaleelka aan bixinin caruurta jaamacad ka sugayaan uma daliilaya ma suuqa sameeyo laakiin waa inuu amra dhaqaale kan lagu dabooli lahaa inay xaaladda ku shaqeeyaan maaliyaddu oo in furidda ku shaqeeyaan boqolkiiba 90 ama 95 waa laga yaabaa boqolkiiba 2 xumeen jiraan oo darastaalay kuwa aanu doonayna inaanay noqonin barur badan qurmisay oo inagoo 99 furid ku shaqeynayna
laba saddex ama 2% si bilaad waa dhacda xagga xun socdana inuu ka dagaal galaano waa waajib haddii kale ifirskeen oo khasaar horno marmeen hadda dadka taa musuqmaasuqa xagga laga musuqmaasuqa ma taqaana ha marka hore lacag buu soo qaaday marka hore baan xafiis fadhiis soo eegay mar labaadka kastamadu eegay koow ya ka cashuurta qaado hadduu si kasta ninkii cashuurta qaado u halgamay waa tuun la qabo oo wargeeda soo qalay waxaan u baahan inuu tirtiro oo qofkan tabcay nafta horay dulmiga lagu hayo tuug baa tahay isagoo aan ahayn nafta horay aanu ka saaro taana waxaan ka saari karnaa qofka iyo labada qalad kale aynu qabano wanaga wada go'an tahay qofka shaqeynaya ayna dulmin waxaan ku soo koobaya waxaynu u baahan nahay maanta casriga adduunkii sidii hore dhaqaaluhu ahaan jiray wuu iska bedelay adduunkii wuxuu sameynaya tadawur aynaan garanayn oo yacni dheeraynaya waad arkaysaan dowladii waaweynaa oo isku haysta dhaqaale maanta China iyo waxa adduunka ugu xoog weyn iyo Mareykanka oo cashuur bay isku haystaan nimankii NATO wada lahaa ee Yurub iyo North America cashuur bay isku haystaan oo inay NATO burburtay iyo ku jirta waa dhaqaale isku hirdayay adduunka maanta ugu xoog weyn awal hore waxay noqonayaan Ruush iyo Mareykan oo nuclear leh oo ciidamadu berberaya noogu yimaadaan iyo adduunka oo dhan dagaalka ay qaboobo dalka la kala qaybsado waa qadar iyo abdul jiraan population kooda haddii la isku daro 2 milyan ma gaaro haddana maanta dhaqaale awgeed waa super power iyaga la eego waa dhab dee gaas iyo petrol la soo baxay laakiin dowlad badan oo gaas la soo baxeen waxa ayaa dhaqaale sameeyay inaguna kama liidano isfaham baynu baahan anigu waciga guud baan leeyahay detailka ma garaya BF baa la wadaa iyo tax fario la wadaa jargonka qolo waliba ay leedahay kelmadaha ay isticmaasho dhakhtarku wuxuu leeyahay luqado gaar ah maaliyaddu waxay leedahay luqado gaar ah warshadu waxay leedahay luqado gaar ah siyaasaddu waxay leedahay luqado gaar ah looyaradu kolba dhan bay ku jeedeen kelmad qura saddexda looyarada fadhiya mid baa dhan ku dhufanaya saakaasi saddex looyar haystaan waxaan ku yidhi faraska haddaad xakama labada gacmood saa u dhufato xagga u budo saa u dhufato intuu istaagu labada dhugood saa idhaahdo maxaa dhacay waa xayawaan moogti looyaraduna xaggan ay ku dhufanayaan oo xaggan ay ku dhufanayaan saad i istaagaysaa waxaa leeyahay luqad gaara ayay ku wada hadlaan markaa luqada gaarka maaliyadda iyo jargonskeeda geli maayo idinkaa waa qoray wuxuuna idinku yimid inaad idhaahdo war hawshaas ayna sugaysa oo dagaal baa inagu jira ciidamada oo adduunkii maanta dhaqaalo ku dagaalamaya oo isma turaayo oo kaad heshiis la gashaa kuma turaayo oo nin walba dantiisu eraya marka tii gudahana way sugaysaa tii dibadda halkaa abdooyin heshiis la galo dhaqaalaynu ka horeynu rabnaa aqoontii aad iskaga celin lahayd baa la rabaa aqoontii ninkaad dhaqaalaha ku heshiiseen xiise kuguma iman faa'iidu kaa raba DB weyn iyana faa'iida rabtaa ina faa'iidan rabaa aqoon baa iska celin karta dee muran iskama celin karo aqoontan idinkaa kow ka ah xisaabaa la gelaya logistics tax boqol magac baa loo bixinaya waxaa la rabaa fiir galaha cid taqaana ayaa loo baahanya waxaynu aynu aada u jecelahay Ethiopia 100 milyan baynu doonayno ka shaqeyno oo cooperation galo waxaan u baahanahay aqoontii dee inagoo saaxiiba haddana xadiiskii ahaa sida walaalnimadana wuxuu wada cuna si cadiguna xisaabtama aqoonteedii waxaa nagu soo socotaa bacmista trade actkii baa soo socda oo xuduudka ah nin waliba dan buu doonaya dadka laga raba inay diyaariyaan waa maaliyadda idinkaa aqoon u leh marka hawsha inoo taalla waa hubara aynu doonayno in degdegna hore uga gaadhno aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya hawsha qaranka u haysaan waa laydin ogsoon yahay qarankuna ma socdeen waayo waxaa tihin halkaa xilkaa weyn nin kastaaba haado ciidanka wasaarad kasta oo dhaqaala wax lagu daro idinkuma la dhiba budgetkii baad kala tagtay kan waxaa dad baahan ee halkaa fadhiya ee foosha xun ee carruurtoodii caawa bariis siin karaya ee mar qura wax cunina inagayna sugaya weliba maaliyadda wasaaradda beeruhu beeri mayso haddaanay maaliyaddu dhaqaalo siin tan macdantu wax kari mayso haddaanay maaliyaddu dhaqaalo gelinin tan investmentka aynu doonaya inay caalamka inoo soo jiido socon mayso haddaanay maaliyaddu wax gelin iskuulladeenu iyo jaamacadeenu arday tayo fiican soo saari mayso haddaynaan macallimiintayna mushaaro siinin ciidamadeenu noqon maayaan ciidamo nidaamsan haddaanay dhaqaalo helin oon la tababarin soo xoori waa maaliyaddooda madaxtooye adag oo madaxda caalamka iska celisa noqon mayso haddaanay maaliyaddu taageerin
warmay markaa mas-uuliyadda aan ku imid eedan haystaa waata culus wax dhibaato iyo dareen oo ka qabaa ma jiro inaa hawsha ka gaabsan inaa kuristeen mooyaane laakiin dhiirigelintaasaan idinla yimid waxaan aada ugu mahadnaqayaa aan ku ambaleynayaa maalin dhowta waxaa ii yimid maalintii ciiddii 10 hablood oo the masters markii laga hablo jaamacadaha ku doonay waxaan ka fikirayay waa tii aanu sii daynay xeerkii dumarku ha galeen baarlamaanka markaa doodo badan baa igu socdo si aad u qaybisay iyo maxaad ugu tala gashay intaad wadasaayo bay habluhu igu dhaano deetana waxay ka mid tahay dareenkii aqooneed ee maaliyadda iga siiyeen ka aan ku fikiraan idin imaado aan la qaybsado lecturkii ugu wanaagsanaa een maalid ka dhegeysto hablahaas ay siiyey ee dalka saacad iyo 12 daqiiqo fadhiyeen waxay aadeen iyagu 5 minute in 20 bay hadashay in 32 in 38 mahmaah iyo araar iyo faan iyo taariikh hore mid dami gelin direct intaa jaamacada ruuteen bay igu soo koobeen saacadda oo si wanaagsan igu dhufteen imbert hawshaas ay qabataa maaliyadda hawsha qabo dhalinyaradiina badan ee joogtana am glad inaad saa wax wada garanaysaa odayaalku caddaana waa haysataa waxaa laydinka fadhiyaa 3 sano ka bacdi 5 years later 2 years later halkee baynu joogana maanta ka rabaa ila fikir kastoo aan fikirnay iyo wixii xisbigu qoray iyo buuggan la yidhaha muxuu ahaa horumarka d m b isu wada gee wax qurux badan baynu qoraynaa halkaasaynu gaarna sanadka dambe halkaasaynu gaaraynaa dee ciddan gaarsiisa waa maaliyadda iminka waxay sugaayeen barnaamijkii shaqaalaha ee dhalinyarada sanduuqii dhalinyarada oo ay dhalinyarada wax loo furo waa ku mahadsantihiin waa dhigteen dagaalkiini intiini December waxaan sugaayay shaqo qaran bilowga hore 2 milyan bay u baahantay shaqada qaran object maaha hablihii waa in shaqooyin ay ku shaqo tagaan la baraa jaamacadaha ka soo baxeen guriga fadhiyaan horta waa in dalkoodii la baraa oo dalka gudahoodii iyo magaalooyinka la isu gudbiyaa waa in shaqadoodii la siiyaa shaqo ay hore ka bilaabi karaan oo xirfada loo kordhiyaa macallimaad nurse ku hospitality inamadii waa in shaqadoodii la baraa waa master halkan u fadhiyaa jareedir baa horta akhriyaa jareedirna cilmi u kordhiso wuxuu bartay buu iloobayaa isu keen creativity ku abuur halkii uu shaqo ku tagi lahaa hore ugu kordhi kii macallin noqonayay macallimiintu waa halkay inoogu liidata intaasoo arday jaamacad ka soo baxayna waynu haynaa oo ciddada fadhiya isu gee marka hore iyaga layli kala qaadashada amarka bar gurigooda ka soo kaxee kii hargeysa ku dhashay ceer gaabagee kii la soo ku dhashay gee booramay qofka magaxasi kori taatana shaqto hasku kalsoonaado ha socdo wuxuuna sugaa inuu jeen war bilowno 2 milyan inooga baahay balaanka iyo qorshaha inoogu jiri wixii kale hawla inuu socdo way jiraan deetana inagoo isu dhan inaan ra'yigaada la qaybsado oo ka hawlgalaabaan doonaya waana isu badsananaa jaarra waynu nahay laf dhabartiina waati dee xilkaasaa idinla yimid maanta inaad idhaha waryaala ila qaada haddaa maalidii tihiin oo hormood ka noqda waxaan jeclay wixii ra'yi inaynu qaybsanno